بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. waxaan ku faraxsanahay inaan mar kale kulanno si aan usii wadno casharkeennii ku saabsanaa ama duruustii ku saabsanayd diinta iyo siyaasadda. walaalayaal, waxaan rabnaa inaan abuurno culture ama thaqaafo ama fikir siyaasadeed. waxay dhahdaan aqoon-yahanka waaweyn ee ka shaqeeya fikirku, waxay dhahdaan siyaasaddu waxay martaa 3 jaranjaro. jaranjarada koowaad waxa weeye dadka abuura siyaasadda, fikirkeega sameeya, waa filosofiyada, waa mufakiriinta, amba islaamka waa ambiyada, culimmada iyo waxaas oo dhan waxay sameeyaan fikirka siyaasadda. jaranjarada labaad waxaa dhahdaa waa dhaqan siyaasadeed. dadku waa inay yeeshaan culture politique, waxa dhahdo culture political oo siyaasadeed. afka carabigana thaqaafa siyaasiya, af soomaaligana waxaan oran karnaa dhaqan siyaasadeed. marka saddexaad, jaranjarada saddexaad waxa weeye waa hirgelin siyaasadeed, waa mumaarasa, waa hawl la qabanayo oo siyaasadeed. saddexdaa jaranjaro waa inay siyaasaddu marto. ummaddu haddii ayna lahayn dhaqan siyaasadeed, suurtagal uma noqonayso inay yeeshaan, inay hirgelin siyaasadeed yeeshaan oo ay si saxa ugu dhaqmaan nolosha siyaasadda. ummadduna ma yeelan karto dhaqan siyaasadeed haddii ayna jirin curayaal curinaya fikir siyaasadeed. fikirka siyaasadeed markaa waa wax la curiyo weeyaan. waxaan ognahay siyaasadda waxa ugu weyn ee loo curiyo waxa weeyaan waa inay bini aadamku wada noolaadaan. marka ay wada nool yihiin waa inay samaystaan wax habeeya noloshooda. waxa ugu weyn ee dad bini aadana noloshooda habeeyana waxa weeyaan waa dowlad weeyaan. marka dowladdu waxay u baahan tahay dadku inay gartaan in ay tahay wax ay wada leeyihiin. dowladdu inay tahay institution, mu'asaso caam ah oo ruux wal oo dalka degan in uu garto inuu isaga iyo kuwa kale ay wax ay wada leeyihiin uu yahay, aynan ahayn dowladdu wax dadi ay si gaara ay u leeyihiin. sidaas daraaddeed baa la dhahdaa marka laga hadlayo siyaasadda, waxaa la dhahdaa siyaasaddu waa wax loo isticmaalo waxyaalo badan. waxaa loo isticmaali karaa siyaasadda dowladda, waxaa loo isticmaali karaa siyaasadda tacliinta, siyaasadda caafimaadka, siyaasadda dhaqaalaha, siyaasadda waxaa loo isticmaali karaa iska soo soco oo siyaasadda aan ku maamulayno ayaad oran kartaa ururka, siyaasadda aan ku maamulayno jamaacad dacwadeed, siyaasadda aan ku maamulayno guri aqalkaaga markaad maamulaysid iyo reerkaaga. sida aad u dhaqmaysiin waxay u baahan tahay siyaasad caama inay jirto oo habka guriga loo dhaqayo siyaasad loo dejiyo. marka kelimadda siyaasadda dad fara badan waxay u yaqaanaan inay tahay wax xun. kelimadda siyaasa waxay ka dhan tahay waa kelimad carbeed oo ka imatay saasa yasuusu siyaasatan. waxa weeye waa hogaamin, waa suubin, waa hagaajin, waa ka shaqayn, waa maarata arrimaha inaa si wanaagsan loo dhaqo oo loo maamulo unbay ku tusaysaa. marka maadaama ay sidaa tahay, waxaan jeclahay in aan maanta aan qaadano lecture amba cashar ku saabsan qiimaha ay leedahay sidee baa dowlad dadku ay u samaystaan. waxaan ognahay samaynta dowladdu waxay ku imataa 3 si. saddexdaasi ay ku imato waxa weeyaan inay dowladdu inta uu guumayso ku qabsado, sida africa uu ku siiyo dowlad adiga kaa iman aada iska dhex arkayn oo dadka bini aadamkii ayna samaysan, laakiin guumaysigii sameeyey uu yihi sidaabaa loogu dhaqmay ugu dhaqmo. marka waxaad leedahay maaha, waa hiba. sida africa waxaa dhahdaa dowladaha africa waa hibatul mustacmar, isticmaalka ayaa siiyey. amba waxaa dhahdaa dowlad si labaad baa loo sameeyaa, waxa weeyaan dad meel xoog ku qabsada, ku tashada inay meesha dowlad ka samaystaan, isla markaasina shacbigii hoos fadhiyey ay aqbalaan dadkaa qabsaday inay u noqdaan raciyad. marka dadkaasi muwaadiniin lama dhahdo, citoyenity male ee waxaa dhahdaa raciyad la haysto. dadka haystaayana dowladdii bay haystaan. markaa systemkana dowlad waa loo sameeyaa. si saddexaad baa dowladda loo sameeyaa oo ah dowladda iminka adduunku ictiraafsan yahay ee la dhahdo
الدولة الناجحة دولة دائما كسعطة وحويا دولة كدلتها وحدة كونترا عقد بكدلتها هشيس بكدلتها وحنا دليا ضد وضع حرة oo nin walba volunteergiisa iyo iraadadiisa iyo rabitaankiisa uu haystay oo isagu ka tanaasulay oo uga tanaasulay in wax la wada sameesto nidaamkaana waa nidaamka saddexaad ee dawlad loo sameesto waa nidaamka waxa ku sameysmay dawladda moderniga iyo dawladdii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dawladda nabi maxamed ma ahayn nin meel qabsaday ama nabi dadka ka dhaadhiciyay inuu xoog ku qabsanayo ma ahayn waxay ka dhalatay laba aqdi oo waaweyn oo kontra aha heshiis dhex maray نبيجا يرين مدينة صلى الله عليه وسلم بيعدي العقبة الأولى هي بيعدي العقبة الثانية بيعضنا واحد كده انتهي وهشيس أحمر يا لبا دنع مركا دنع عن إياه والنبي مثلي إياه دنع يكلو رين مدينة مثلي أياه هشيس قري سيد الله أبوري لها دولة الإسلام كده مركو النبي ويمدينا صلى الله عليه وسلم بيعدي عام كأياه دعدي وصحيفة دي بقرين دستور كي وينا أيو قرين مركا أستاذ درادي وحاجرة وآدو مهمة وإننا تلماما أن جعلها كتاب وقري من بروفيسورة ودكتورة ووضع كويت ولا شيء ولا يدهضو ضدك مسلمين تبو قري وحول بحي كتاب الحرية أو الطوفان مسلمين تو إن اللبن بالدورتان إن الليبرتي يحرية أي قاتان أو أي سميستان دولدو حرعة هي إن بربران أو طوفان وقاضو وحول قري كتاب لباتن سنة كهر إنتين أين الدعين بحلو بحيي برانتا عربك أم الربيع العربي أم بتوردي عربتا عالمك إسلامك عربتا بالجري marka waqtigaas wuxuu sii tilmaamay wadaadkaasi ama mufakirkaasi amba xurriyad baan qaadanayna amba duufaan baan la jeelin duufaankaasi wax badan buu jiray wuxuu ku bilaabay Soomaaliya wuxuuna imika socdaa wadana badan ayuu sii socdaa marka arrinkaasi afkaa uu qoray baan meesha aan ka tilmaami doonaa kitaab labaad buu meel dhaweyto uu soo saaray oo aad u muhiima wuxuu kitaabka u bixiyay tahriirul maarata insaan wa tajriid at-tughyan kitaabka wuxuu bixiyay salha looga dhigo dawladaha islaamka ah xurriyad inuu qofka la xoreeyo qof xora oo ba samaysan kara dawlad xora qof xora oo ba samaysan kara urur xora qof xora oo ba samaysan kara nidaam xora marka sidaa daraadeed dawladaha najaxaysa ay ku najaxeen waxa kamid ah saasi waxa kale oo jira taqriir 2009 report oo soo saaray midowga Yurub iyo jimciyadda quruumta soo saareen oo ilaa 109 boga oo laga hadlayo hashaashatu dawladaha adduunka sida ay u dabacsan yihiin ay gaarka ugu saaran yihiin inay burburaan dawladaha waxa loo qaybiyay 5 qaybood baa loo qaybiyay dawladaha halista ku jira ee burburkiiba ku socda ama burburkiiba ku dhacay 30 dawladood baa la geliyay halkaas waxa kamid ah Masar waxa kamid ah Iraq waxa kamid ah Afghanistan waxa kamid ah Suudaan waxa kamid ah Koonfurta Suudaan waxa kamid ah maartay Soomaaliya oo iyadu hore u gashay waxaas oo dhan oo iyadu dawladdu faashilay ka soo aqoonsan kooxda dawladood waxa kamid ah dawladaha loo bixiyay dawladaha aad ka loogu digayo inay halis ugu jiraan waa ilaa iyo 6 dawladood 6 ka dawladood waxa ku jirta Djibouti oo ku jirta maartay taqriirka raaporka 2009 uu soo baxay waxa lagu tilmaamayaa dawladahaasi waa dawlado gaarka u saaran inay dumaan qaybta saddexaad waxa weeyaan waa dawlado loo digayo laakiin digniintoodu ay fududahay dawladahaasina wadano badan oo islaama ayaa ku jira oo xataa ay ku jiraan wadano khaliijka kamid ah dawladaha afraad waa dawladaha lagu tilmaamayo dawladaha mustaqilka ee degan ee xasiloon ee aan looga cabsoonin inay fashilmaan dawladahaasi wadanada islaamka ah waxa ka soo galay wadanka Imaaraadka iyo Qatar waxa ka soo galay oo kale Malaysia ayaa ka soo gashay iyo Turkiga inta kaleeto ma ayna soo galin marka waa dawladaha degan ee mustaqilka ah iyo kana laba loo qaybiyay dawladaha aad u degan iyo dawladaha deganaan caadiyada kuwa aadka u degan waxa noqotay hal wadan oo quraatay waa Finland wadanka dhacdo waxa maartay dawladaha fashilmay waxa la siiyay darajada amba khatarta ku jira 122 darajo la bixiyay dawladda ugu fiican waxay noqotay wadanka maartay Finland oo heshay 17.8 inta kaleeto oo dhan waxay heleen wax ka sar wax maartay taas u dhaxaysa marka wadanadaasi waxay ku dhex jiraan intaas marka waxaad arkaysaa halista ay ku jiraan wadanada islaamka marka macaayir baa la sameeyay maxaa keeni kara in la yiraahdo wadankaasi uu burburaya wadankaasina ma burburayo maxaa la eegay waxaa la eegay waxyaalo lagu qiyaasay yaa la eegay
qiyaasta koowaad ee la qaatay waxa weeyaan fikirka dowladdu ay ku salaysan tahay may tahay dowlad ilaalisa xorriyadda may tahay dowlad ilaalisa cadaaladda may tahay dowlad ilaalisa xuquuqda bini aadanka may tahay dowlad uu qofku iska dhex arko uu leeyahay adigaa leh may tahay dowlad caafimaadkeegu uu fiican yahay oo dadka da-doodu ay raagto may tahay dowlad aqoonta dadku ay bartaan ay tahay aqoon isdaba joog ah oo tacliintii hoose tii dhexe tii sare si fiican loo dhiganayo kadib markuu qofku tacliinta ka baxana waxaa loo yaqaano formation continue waxaa loo yaqaano amba atadriib almustamir tababarka sii socda muu socdaa muu jiraa oo qofku tacliin ma wadaa laga helaya natiijo shacbiga uu ka helaya ma jirtaa waxaa laga eega dhinaca kaleeto dhismaha waxaa loo yaqaano albiniya taxtiya constructionka hoose oo dhan ma dhisan yihiin jidad ma jiraan dariiqyo ma jiraan dekado wanaagsan ma jiraan oo layskaga tabi karayo oo meel walba bini aadamku ay ku kulmi karayaan dhaqaaluhu ma u socdaa si fudud oo aan lahayn maaragtay cidhiri biroqraadi aan lahayn ma u socdaa waxaasoo dhan ayaa laga eegaa marka waxaas dowladaha ku najaxayna way najaxeen kuwa aan ku najaxinna dib ba u dhaceen marka waxaan jeclahay afkaar 10 ah inaan inii soo bandhigo oo iyadoo kooban oo lagu salayn karo dhismaha dowlad cusub oo u eeg dowladaha najaxaya ee degan una eeg dowladdii uu sameeyey nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaan ka dhaqaaqaynaa 10 qaacido oo waxaan isweydiinaynaa horta nolol bini aadamku ma yeelan karaa bilaa diin waa may weeyaan bini aadamku haddana sida kale haddaan u dhano nolol ma yeelan karaa bilaa mabda waa may weeyaan marka dadku si ay u noqdaan dad dowlad samaysan kara amba waa inay diin midaysa yeeshaan amba waa inay yeeshaan mabda mideeya matalan faransiiska waxaa mideeya nidaamka loo yaqaano laicitiga iyo republicaanka nidaamka jumhuuriga ah iyo nidaamka cilmaaniyadda marka hadduuna nidaamkaasi jirin dowladda faransiisku ma jirayso matalan dowladdii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ma jiri karteen hadduunan jirin ideolojiyada islaam marka dadku waa inay jiraan fikir ay rumaysan yihiin oo ay dowlad ku dhisi karaan marka laa xayaata bilaa diin la-aan iyo fikra la-aan iyo nidaam la-aan iyo ideolojiyad la-aan maaragtay nololnimo ma jirtaba noloshu waxay noqon karaysaa xayawaannimay noqonaysaa marka bini aadan iyo xayawaan waxaa kala korraysiinaya waxa weeyaan waa fikradda weeyaan waa qaacidada koowaad weeyaan qaacidada labaadi waxa weeyaan diinna ma jirayso haddii uuna jirin nolol organisation leh dadka bini aadamkii haddaynan ishabaynayn oo ayna ku jirin nidaamyo kala duwan ayna ku jirin oo aynan habab lahayn nidaama dadka bini aadamkii markaasi diintooduna sax ma noqonayso fikradooda sax ma noqonayso waxaa jira dad wadaada oo fara badan oo ku horjeeda waxaa dhada tandiimka dadku inay is organiseeyaan inay urura yeeshaan inay iskoola yeeshaan inay fikrada yeeshaan madrasadan waxaa dhada sida madrasadan magacaabay leedahay dad iska diidaa jiro wadaada oo leh muslimiintu waxaa ma samayn karaan kuwaas qur-aanka u jawaabay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala dadka gaaladu noloshoodu way nidaamsan tahay waladiina kafaruu bacduhum awliyaau bacdin marka ininkuna maxaad yeelaysa muslimiinta ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wafasaadun kabiir marka noloshu waxay ku salaysan tahay tanziim iyo ishabeen bay ku salaysan tahay wixii isku fikra inuu isku biiro wixii isku ra'yi inuu isku biiro marka tanziim baa loo baahan yahay dadku markay isnidaaminayaan isma nidaamin karaan haddii ayna jirin dowlad dadka nidaamisa waa qaacidada saddexaad weeye qaacidada saddexaad waxay leedahay laa tandiima biduuni dowla haddayna dowladi jirin oo organisationka ugu sarreeya bini aadan nidaamiya waa dowlad weeye haddii ayna dowlad dadku haysan fawday noqonayaan sidaa maaragtay ka dhacday gobollo ka mid ah soomaaliya muddo fara badan kasoo socotay amba waddanada carabta qaarkood ay ku dhaceen bilaa dowlad dadku haddayna dowlad lahayn waa fawda weeyaan badiilka dowlad la-aanta waa fawdo weeyaan markaasaasina waa ta afraad saddexaad weeye ta afraadi waxa weeyaan dowladi ma jiri karto adduunka dowlad lagama samayn karo haddii uunan jirin horjoogi dowlad walba waa inay yeelato imaam iyo president iyo ruwaa qof xakumo inuu jiro marka dowladii waxay sax ku tahay inay yeelato hogaamiye la-aan dowladi ma soconayso dowladina hogaamiye u baahantahay marka waa daruura waa necessary waxaan aan sheegayno marka tasta afraadina waa taa tashanaadi waxa weeyaan imaam ma jiri karayo nin hogaamiye ah bila contract haddii kalese waxay ka dhigan tahay xoog buu ku haystaa lacag buu ku haystaa amba wuxuu ku haystaa maaragtay dadka wuxuu ku haystaa waxyaalo kaloo sanduleysina oo dhaxal buu ku helay marka waxaa lama rabo waa inay jirto contractguna maanta waxaa lagu sameeyaa vote baa lagu sameeyaa dadku waxay kugula galayaan contract intaayoo sarna xakun vote bay kugula galayaan marka waa contract
إمام مركا ما دعايو نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحو إمام كن نقضي إلهي بصادر لكن غير ما ندينا كونترا بلقى أبو بكر كونترا بالله عقدي بالله هشيش بالله مدحوينه كن نقضي بيع الله كونترا ما دعي كرو قاعدة ذكره كونترا ما دعي كرو هشيسنا ما دعي كرو دتكو هذين رالي كهين مجرى كونترا إيا قاعدة دتك الله قصبه أول هذا أنا جوجا وأنا دي دورتينون مركا ونين قراتي إذا شرحوا وحكينا تاي حوق بكويس ماشي مركا بلا رضا الناس ومهم جدا دتكو إن رالي كايين دتكو أنا اختيار كوجا دورتان أي كونترا كولا جلان تتضبط قاعدة وحيان اختيار كاس هي الدورشة ما دعي كرسو هدو نجري السيستم شورى ودتكو يكون تشران دتكو وإنه جرى الشورى أي تشران إلهي يقول وأمرهم مسلمين تأمركوه شورى بينهم وطلع نحت على وشاورهم كقيب قال النبي محمد في الأمر أمرك ومحي ودولة دمام الكيغا والنبضة والدقالك وهرمرك وحاصل وإلا قدود هالشيس بارا لقال يا دولة واوين وإن أمدو لقاش ما هي نقف لقاله أمدو واوين ما لس دقاليا وإن ضدك أمدو أي دقالة ما هي نقفكو كلي دقالة قفكو مارتي هديك الأمدو هلاقي حوله إنه يبيني تذكر عدة جوجو ما ساكن دونا مركا وحال الربا اختيار إيا الرضا مجرته بلا شورى شورى أنا ما دعي كرت تذكر بني آدمكي ما تشكران هدي أحرار هين هدي الحرية جري هداتي هدتك والله تشنيا وأنت القرار كسوقات سوق الروسي وذكرت هذا الكابان مرينا كورما قعدت تاجا قعدت اسكت تاجا وحما دتكو يكو اسكو حرتيا أو نيو والبا وحرية بها يستوى وإنا شورى السمايو محمود علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرية إلهي كسي قفها كإبنين محايا إلهي وحكو أبوري أدو حرة مركا حرية هذا وإنا ذا يستدوي تاسنا واتبارتي سديدات لا شورى بلا حرية بدون حرية مرعي كريسو حرية مجري كريسة يدنا دتك للدول هذه جرينتي بدون تعددية سياسية بوليتيك ما دتك وإني كالدول هذا دتك للدول أفكار كالدول له مد مديقة مد بديحة مد ردحاضة مد مارت أرتي إسلام له مد أرتي لا إجتيا له مد ما يمارت نبوحو دوني أمي سنادين تعددية سياسية وإني جرتو كالدول أشوف فكرة وإني جرتو dadka inta shaabigu loo qaato halka dambe laga marina oo la isku ekaysiinina waa inay jirto wax run oo la taabanayo baartiyo iskoolo afkaar kala duwan tacadduda siyaasiga waa inay jiraan islaamkuna taasi way jireysay ree ansaar iyo ree muhaajiriin quraysh tahay markuu nabigu dhintay dood way badhacday laba iskool ansaartu waxay dhaadeen annaku madaxweynaan dooranayna sacad ibn ubaad soo bandhigeen abu bakr bin siddiq iyo abi ubaydana عمر يا أبو مارتي أبو بكر الصديق يو مارتي وحاول جدا عمر يا أبو عبيدنا أو بكر بيسوق بديان مركا حقنا واحد جرتي للمضحى حقنا للمضحى وحنا كلوتها لما إسكول الله كلا يقعني المهاجرون يا الأنصار لما دي يقولوا حوق الضاد مركا دبنا منا أمير ومنا أمير وحيد هذين إنكم أمير بايرنسين أنكم أمير مرنا قريش تقبا مرنا أنصار تقبا مرنا قريش تقبا مرنا أنصار تقبا سلا باشو دوس عنها أخيرا واحد لو جبي إن أبو بكر لدورته وأنا لسكو قنعي مركز تعددية سياسية وضبيتي وحوي تعددية سياسية كل دواناش السياسة مجري كرتو هدي أي نجري ريفرنس بوليتيكا وأمضوا وضع احترامي سو دستوركي دينتي أفكارتي أمضوا أي وضع احترامي سي مركز وين جيت وحوي الله وضع احترامي هذا بس لازم رادي وحويان الرمها عن شرحي الناس وبندقي طبعا كأ أيام جودها وجريدونا إن شاء الله تعالى سأمس شرعناه دينتا هي سياسة وأفكار عصم أفكار سيجريسي لكن مسلمين تباهيين أسوس ونقرنا السلام عليكم ورحمة الله